munaasabad aad u qurux badan ayna soo qaban qaabiyeen jaaliyadda Soomaalida wadanka Holland iyo ururka dumarka Amsterdam ayaa lagu soo dhaweeyay danjiraha Soomaaliya oo fadhiya wadanka Mareykanka Axmed Ciise Cawad. kulankan ay ka soo qayb galeen madaxda ururada Soomaalida wadanka Holland iyo marti sharaf kale ayaa danjiraha lagu amaanay wax qabadka muddadii koobneed uu danjiraha ahaa. ugu horreyn Shamsa Siciid oo ku hadashay magaca qabanqaabada ayaa wax lagu faano ku tilmaantay in muddo kooban calankii Soomaaliya laga taagay wadanka Mareykanka, halka marti sharaftii kalena hadal soo dhaweynay halkaas ka jeediyeen. qof Soomaaliya runtii howl badan iyo maaragtay waxyaabo badan ka soo qabtay intii hadda ay burburka jireen waad ahayd haddana maaragtay meesha ugu muhiimsanayd oo diblomaasiga adduunka laga xukumana maaragtay waad noo joogtaa oo aan runtii taariikhdaada hadda intii yareyd safaaradda sida waqtiga dhaqsaha lagu furay juhdiga ay galiseen adiga iyo dadkii runtii maaragtay reer Mareykan kula dadaalay runtii waxay ahayd wax lagu faano runtii badanaa inta badan dadkeena masalaysa markaa safiir tahay ama qof diblomaasi tahay waxaad ugu tahay calankii aad ugu tahay meel walba joogtay. waa runtii wuxuu ka mid yahay asalka dadka Soomaalida ay haysato ay ku faani karto waa nin qaran weyn midaan iska ilaalino waxba yeelan amaani dadkeena madaxdeena amaanina amaanta waa kululna waxay khibrad baan u leeyahay inta ay koobnahay wanaagsan ka kooban aan ka sheegay Axmed waxaa muhiim ah in amaantiisu uu ku kooban tahay dalka ugu awood badan adduunka ilaaba awood leh yaa la gartay inuu ka noqdo safiir oo Soomaali ku matalo. waxaa sharaf u ah inaan adiga iyo marwadaada aan ku soo dhaweyno runtii taasoo muujinaysa shaqada muhiimka ah ee lagu magacaabay in mujtamaca ummadda Soomaalida aad u qabato taasoo aan leenahay Ilaahay u garab galo. aad iyo aad aan ugu farxay markaan safaaradda Soomaaliya aan arkay iyo calankii oo la saaray waa garan kartaa Soomaalinimada macnaa intaasoo 25 sano oo muxuu ahaayay aan sugayno oo hadda maanta safaaradda dawladda ugu xooga badneed. ugu dambeyntiina danjire Axmed Cawad ayaa sheegay in Soomaalida kalsoonideedii lagu soo celin karo in xaaladda Soomaaliya qofkii aan wax ka qabanayn uusan uga sii darin. dawladnimaduna waa shakhsiyadda yani international looga saad qaarkii ka warhaysaan dadkii aan sovereignty lahayn dadkii aan dawladnimo lahayn shakhsi jira ma aha. xaaladda aad meel ugu timaadid haddii aadan ka wanaajin karin sida ay tahay ha uga darin ma garanaysa hadal iyo ficil toona ha uga darin. marka haddaynu nahay dad Soomaaliyeed oo waxgarada kulligeena aqoon leh oo mas'uuliyad nahay ha dhihin hadal kalsoonida Soomaalida isu soo noqoto wax u dhimaya haddii aadan dhihi karin hadal iyo ficil wanaagsan. diinta waxa ku jirta mar kaleeto shaqadana sheeganayno haddii aadan wax fiican sheegaynin iska aamus. marka haddii aadan wax wanaagsan oo dadka isu keena oo si xoojiya kalsoonida isku qabno iyo tarasiga isku qabno iyo sidii Soomaaliya barihii ugu horreysay gobonimada laga imaanayay dawlad wasiirnimada iyo wax maanta lagu dagaalamo nimadii la isugu dacayn jiray ilaa halka ay gaaro oo kulankan ayaa ku soo aaday xilli dhawaan dib loo hirgeliyay 24 sano ka bacdi safaaradda Soomaaliya. Tawfiiq Shira Muuse, Somali Channel, magaalada Amsterdam ee caasimadda wadanka Holland.